shan wiil oo dhashay ayay dhammaantood ku weyday dagaalkii dhex maray ciidamadii militariga ahaa ee Siyaad Barre iyo ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM. hooyo Dahabo shanteeda wiil oo ka mid ahaa ururkii SNM isla markaana u geeriyooday sidii ay taliskii militariga ahaa ee Siyaad Barre ay uga xoreyn lahaayeen Somaliland ayaa haatan waxa ay ka mid tahay hooyadani hooyooyinka qaranka hoostiisa ku dayacan iyadoo wakhtigan adag ay waajahayso xaalad duruufeed oo xun. waxay hadda ku nooshahay magaalada Hargeysa waxaana maanta soo gaarsiiyey waxoogaa lacag ah dad muxsiniina oo ka mid ah ururkii SNM kuwaasi oo ku sugan dalka dibaddiisa. waxa ay ka damqadeen xaaladda ay ku sugan tahay hooyo Dahabo. waa Dahabo Ciise ku magac dheertay waa hawayaan mujaahidiintii la oran jiray ilma Cabdi Aadan hooyadood shan mujaahid bay haayeen shan toban dagaaladii aslamtay ku dhinteen Salaxley Hargeysa Sheedaha anayaha marka islaantaas waa islaanta waa agoonta waa agoon ugu islaa islaamta cid kasto wax soo taraysa waxa weeyaan waan u mahad celeynaa marka waxa weeyaan dadkii deeqdan soo dhiibay ee bishaar Ramadaan aynu afurka yar u geyno way ku mahadsan yihiin haday mujaahidiinta yihiin haday muwaadiniinta kale yihiin cid kasto gacan ka geystay waan u mahad celeynaa marka halka waxaan ku haynaa lacag $1 baan guddoonsiinaa insha Allah taala dadkii soo dhiibay way ku mahadsan Ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro cid kasto soo caawin karta haday dawladdu haday shacab tahayba way u baahan tahay waxa weeyaan kii horeeyay wuxuu ku dhintay Salaxley sagaalkii ku diray daqar ku diray ayuu ku diray saddexdii kale habeen bay wada dhinteen Maxamed Wali Xabaaj adceed dhaawiciibu ku dhintay Xasan Quraane ana ciidankii galay ee dadka talaabinay ayuu ku diray ayuu ku dhintay isna kii kale dagaalkii u sokeeyay halka buu ku dhintay bes si taasi la mid ah waxa xaalad adag iyaguna ku sugan naafadii ururkii SNM kuwaasi oo haatan iyaguna tirsanaya xaalad dayacnaan ah. waa aabbayaal mas'uul ka ah ubad iyo qoysas kala duwan walow xukuumadihii kala duwanaa ee Somaliland soo maray aanay midna ka helin maamuus iyo mudnaan gaar ah. ragga duruufaha nololeed ay la soo darseen ee qaranka Somaliland abaalka weyn gashaday una soo halgamay waxaa ka mid ah Abwaan Deerwaa oo isaguna xaalad duruufeed iyo mid xanuunba ay isku raaceen. halka waxaa fadhima niman mujaahidiintii islaam kamida oo wada garanaysaan Axmed Iidaan Giire Cabdilaahi Abaskar Deerwaa Magaalo waa nimanka wada garanaysaan marka waxay kamid yihiin 12 nin oo ay dad muxsiniin ugu soo tabaruceen iyaro afura intaasaan guddoonsiinaa insha Allah taala cid kasto wax soo tari karaysa mujaahidiinta way u baahan tahay waa ragga wada naafada xabadihii baa ku jira waa ragga garanaysan soo halgamay anigu waan xanuunsanayaa imaka xanuun jiifay xanuunka aan jiifay waxa iga si weyn ku yibi waxa ilaahay xanuun kale u si dhacayna laakiin xanuun kale u si dhacaya raggana wada xoog waa weyn oo sida leexda u socdo aan bil waxba cunin dagaalamayaan wada socon waxaan u diyaarinay dadkeena xoog iyo baawarkii iyo awoodda aan waqtiga qaadka u weyn baan haystay Itoobiya markii aan dalkayga loo galay ayaan ka soo dhaqaaqay man wadahay dalkayga dib noogu tashanayaan annaga naafada iyo aysan marka anigu ka baxay waxaan ku wareegsanay aadi tana xanuun labaad bisi kuna soo xusin Allah xusin ay garanaysaan waxaan Cabdilaahi Abaskar waxaan ragida wadanka anigu mujaahid imaka ma oranayo waxaan idhaahdaa ciidamada wax iska caabinta waayo mujaahid kelmadda la idhaahdaa waa fi sabiilillah bay naga noqonaysaa marka nimanka wax iska caabinta ragii ka hadhay hadii aanu nahay awal marka koobaad horta waxaan u mahad celinayaa anigoo ku hadlaya magaca ciidamada wax iska caabinta intooda nool iyo anagoo ku hadlaya waxaan u mahad celinayaa dadka muxsiniinta ee walaalaheena ee nagu soo caawiyey qadar lacaga oo afura aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa ciddii ka qayb qaadatay iyo cidda soo dheeraysay iyo cidda xidhiidhisay iyo cidda la soo baxday baa waxaan ilaahay mahad waxaan ugu celinaynaa mahad way qofkaan binaadamka u mahadnaqin wuxuu ilaahay yidhi dadkana uma mahadnaqo. way soo halgameen dhiigooda iyo naftooda ayayna u soo hureen Somaliland balse maanta waxa ay leeyihiin ma aanan filanahayn in sidan loo dayacayo maadaama aanu nahay naftood hurayaashii qarankani.